haddaad ku cusubtahay channelkan fadlan ha ka iloowin inaad noo saarto subscribe riix gambaleelka si aad u noqoto qofka u horeeya ee hela barnaamijyada aan soo gelino. islaam baa waxaa soo doontay wiil ka yar oo ay isla eg yihiin gabadheeda, wuxuuna ku yidhi waxaan rabaa inaan kuu buuxiyo booskii ninkaagii fiicnaa ee kaa dhintay. waxay weydiisay ma guurdoon baad tahay mise waxaad rabtaa booskaas naga bannaanaaday inaad noo buuxisid. wuxuu ku yidhi waxaan ahaa deriskiina in ku dhow 15 sano. ninkaagu wuxuu ahaa qof aad u caawiya dadka faqriga ah oo aan ka mid ahaa. hadda oo aan weynaaday ayaan waxaan jeclaaday siduu ii caawin jiray inaan idin caawiyo. dariiqa keliya ee aan idinku caawin karaa waxaa u arkay inaan guriga ka mid noqdo oo aan ku guursado. hooyo caqli badan bay ahayd, wiilkana wanaag ku taqaanay. waxay markiiba gashay gurigeeda, waxayna la hadashay gabadheeda una sharaxday inay rabto inay u dhisto wiilkaas, wayna ka ajiibtay gabadhii. subaxii xigay ayay u yeertay wiilkii kuna tiri waxaad tahay wiil qalbi wanaagsan, aniguna waxaan ogolaaday inaad naga mid noqotid aana ku dhiso gabadhayda. wiilkii wuxuu guursaday gabadhii, reerkiina wuxuu u noqday aabbo iyo nin mas-uula oo u buuxiya booskii ninkii ka dhintay.